ريه عنك ها تلفزيون يونيفرسال عول ظاهر وسوج يدين جري برنامجه dadku ay warar iyo mawlaba ka helaan waxa uu indhawaale u badnaa barnaamijyo dooda uu qabanayay qaybaha bulshada dadku waa badan yihiin sheekha kaliya aan u ogolaanay inuu dheereeyo inta kale waxaan jecelnahay inay su'aasha kaliya abaaraan عول ظاهر الله ونحرسته حتى استوديوها وحا إلى فرديه آدم سالمين وصفي عن أي سجرانيان وريها أين وذا شقين شرين أن سالمين أدب أمها سنتها بالمركو هراء مرحومك الله ونحرسته أن ننعن كي أيوها عبد النور إلى إن حريث جناها كورابي عويل ظاهر صلاة بركة هراء تعسي أيان ودريا قويسكي سهلدي سي عرورتي سيدا مامبا بهذا الصحافة نحريث جناها الله كورابيو عويل ظاهر صلاة وحوها نين صحفية وددال بدن وعانا وصحافة مدكو سوجري وحاو دبياقدي استتميدي وكشقين يرادي مقدشو دبدنا مركي بربر خدعي ومحندي سي حقا ورباهنتا أيوسي وطي وحاو حقوق رجري ورقيسيدا عان كاي مقالة مقدشو سيدا ورقيسكي قرن لديه جري وشاكوين عام بحي وكوق رجري دبدنا سندكي لبضا كون مركي ورباهنتي حورتا هايدا كبلابتي سوماليا قارهانا مقالة مقدشو وحاو كبيري إذا عدي هون أفريق أيو كبيري عويل وحاوها نين رنتي آد وقود دالا هوليس الصحافة دا كالصور دالالا دبي عدونا يكسان دادال رغن لا أيو أها إذا عداس أيو مدكسو شقين دالكو مركي دباتوين كيسيبتين سندكي لبضو كون إيو شانتنا دالكا يوساقاسو بحي وحاو يمد قربها مركي وإنجريز كيمدنا وحاو كبيري تلفزيون كيونيفرسال وإن مدكا شقين سلامركا سينا برنامج كيسا عام بحي doodaha ayuu halkaas ka daadihinay sidoo kale waxa uu haanin xagga wararka iyo waliba aqbaarada kale oo aad uga qayb qaata waa tahay waxaan filayaa dhalinyaro dad badan inay ka tabi doonaan barnaamijyadii uu daadihin jiray oo runtii dad badan oo anigu aan arkay oo daaweyn jiray ay ii sheegeen inay aad ula dhacsanaayeen oo ay wax badan ka kororsan jireen oo siba doodaha sida uu daadihiyay waxaan filayaa inuu ahaa xaas aabba caruur ka tegay iyada maadaama saaxiib ahaydeen maxaad kala socotaa طبعا سيدات شاكتي عبد النور برنامجيسا وكولا تبي دونو iyo doodihiisa iyo waliba doorkii uu ku lahaa haatan telefishinka Universal oo aan leeyahay waxa uu kamid ahaa laf dhabarka wariyaasha telefishinkaasi ay ku taagnaayeen dabcan saxafiyiinta Soomaaliyeed laftirkooda waxaan filayaa inuu noqon doono tiir weyn oo ka baxay dhinaca haddaan eego nolosha xagga qoyskiisa Cawil waxa uu ahaa marka nin isagu caruur leh oo sida uu ii sheegay Axmed Yusuf Absuge oo degan Ingiriiska oo ilmadeer ahaayeen Cawil Daahir Salaad ilaa in xariista jannaha ka waraabiyo waxa uu ii sheegay caruurtiisu inay gaarayso ilaa 25 caruura inuu dhalay marka halkaasi waxa aad ka dareemi kartaa Cawil dabcan marka oo fi